xayaatul barzaq qofka markii qabriga uu dhinto ma seexanaya qofka su-aalaha la isweydiiyo dadweynaha isweydiiyaan qofka markii maxay ahaato uun adduunka ka tago oo ruuxda jirka ka baxdo qabriga miyuu seexanaya maya jawaabtu waa maya oo laa nooma bacda khuruuji ruux min aljasad qofka ma seexanayo markuu dhinta ka bacdi albarzaq waa xayaatada qabriga qofka uu la kulmaayo imaa rawdatu min riyaad aljanna ama wuxuu noqonaya qol qolalka jannada kamid ah ama qol naar oo kamid ah marka qabriga wax hurdaa ma jirtee bal xayaat nolola taalo nolosha taalo marka waxay noqonaysaa imaa qol qolalka jannada kamid ah ama qol qolalka naarta kamid ah ilaa maalinta qiyaama laga gaaro marka dadka saddex qeybood ay u kala baxaan xayaatada qabriga qofka markii ruuxda baxdo oo adduunka uu ka tago qofka mu'minka taqiga ah markii markaas maxay la soo fariisiyo oo labada malag su'aalaha weydiiyaan oo markii su'aalaha uu ku guuleysto mar rabuk ma diinuk ma nabiyuk uu yiraahdo uu ka jawaabo markaas albaabka naarta la furaa markaas la leeyahay halkaas aad geli lahayd haddaadan ilaahay ku gaaloobi lahayd markaas la xiraaya mar wax janno naar oo galaysa ma jirto albaabka jannada maxaa loo furaya daaqadaha jannada kamid ah halkaas ku raaxaysanaya ilaa maalinta qiyaamada gaar kadibna uu jannada u galo oo ruuxdii jasadka isku yimaadaan xaalka kale kaafirka xaalada labaad waa maxay ahayd xaalada ninka gaalnimada ku dhintay iyo kan munaafiqa ah asagana su'aalaha la weydiinaya mar rabuk ma nabiyuk ma diin ku ka jawaabi waayo labadii malag maxay ahayd bursay qaadanaya madaxay ka garaacayaan maxay ahayd qaylo wuxuu qaylinaya ilaa xayawaanaadka dhan ay maqlaan intaan insigii jinniga ka ahaan marka taasna waa xaalka gaalada qofka mu'minka ah ee dambiyada ku dhacay ama muslimka dambiyada ku dhacay markuu dhinto maxaa masiirkiisa xaguu noqonayaa taxta mashii'atillaah ilaahay maxay ahayd mashii'adiisa hadduu doono wuu cadaabaya hadduu doono wuu cafinaya hadba dunuubtiisa ku xiranta waxaa laga yaaba in qabriga inta lagu cadaabo ilaa naarta haddana lagu sii cadaabo kadibna jannada u galo waxaa laga yaaba waqti oo maxay tahay waqti kamid a qabriga lagu cadaabo ilaa dembiga uu gala uu ka tirtirmado kadibna maxay tahay la cafiyo oo markaas jannada naar albaab looga furo idan qofka muuminka ama muslimka ee dambiyada ku dhacay macaasida dambiyada ku dhacay ilaahay mashii'adiisa waxaa mumkin in lagu cadaabo qabriga waxaa mumkin in ilaahay cafiyo waxaa mumkin in maxay tahay cadaabtiisa ilaa qiyaamo sii socoto waxay ku xiran tahay hadba siduu ilaahay u maamulo subxaanahu wa tacaala idan dadka saddexdaas qeyb ay kala noqonayaan markii uu adduunka ka tagaan mu'minka taqiga ah ee wax dambi ah maxay tahay aan loo u qorneen oo saalix asoo geeriyooday jannadan maxay tahay qabrigiisa wuxuu noqonayaa qol qolalka jannada kamid ah ninkan gaalkan qabrigiisa wuxuu noqonayaa qol qolalka naarta kamid ah ilaa qiyaamo laga gaaro kan dunuubta ku dhaca muslimka ahna ilaahay mashii'adiisa ku jiraa marka mar walba ilaahay ka magangal cadaabul qabriga maxay qofku siduu qabriga noqdo aakhirana noqonaya ama jannada qolalka jannada kamid ah ama qolal naarta kamid ah marka nacuudu billahi min cadaabi alqabri min cadaabi jahannam min fitnati almahya wa mamaat min fitnati almasih dajjal